waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oon ku wareysan doono hooyo Soomaaliyeed oo muddo qarni in ka badan soo jirtay ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu cimriga siyaada badan u ziyaadiyo haddaba hooyadaas ayaa waxay u soo joogtay waxyaabo badan oo ka soo dhacay Soomaaliya ha noqoto dhinaca taariikhda dagaaladii ay Soomaaliya soo gashay dhinaca dhaqanka iyo dahaba hooyadan iyada ayaa waxaa lagu magacaabaa Faadumo Sheekh Cali waxayna nagu soo booqatay studio Royal TV xaruntiisa magaalada Jidda hooyo Faadumo marka ugu horeyso ku soo dhawow TV-ga caalamiga ee Royal TV waa ku dhawahay waana salaamantihiin anigoo jooga magaalada Jidda insha Allah waxaan rajeynayaa adduunka inuu ma aragtay nagana daawado nagana maqlo codkayaga hooyo Faadumo Cali marka ugu horeyso waxaad warbixin yar naga siisaa taariikh nololeedkaaga taariikh nololeedkayga markaan ka warramo horta qof baadiye ku dhalatay baan ahay inkastoo waxna qorin waxna akhrinin haddana waxaan qiyaasahayaa يعني markaan ka sheekeeyo taariikhdayda dadka yaqaan oo maanta aan la noolaa ama magaalo Carmaale la yiraahdo oo Shabeelle kamid aan ku dhashay magaalada Buslo oo dadkii reer Ololdiin la deganaa oo cidaas oo bahgareen ama reer Naaib la oran jiray aan la noolaa kuna aqal galay laba caruurana ku dhalay markaas oo qaflad dhacday oo markii Ololdiin la qabtay iyo Isla Cabdullaahi Diiri Isla Ololdiin iyo Isla Cabdikariin meeshii laga qabtay Buslay ahayd anigana Buslaan joogay laba caruur oo yar yar oo 3 jir iyo wax sanad iyo xoogaa jiraan haystay labadii caruurana axmaaradii baa iga qaatay odagaygina meesha lagu dilay anigu ka bacdi waa iska soo noqday meeshii aabahay iyo hooyaday ku noolaayeen baan iska imid oo Carmaale ah sidaasaan ma aragtay marka waxaan rajeynayaa taariikhdayda dadkii yaqaanay oo waagaas noolaa hadii nolol lagu gaaray firkaa dad baa ka haray oo aan filayo inay Itoobiya joogaan bal taariikhdii la qabtay Ololdiinle iyo Isla Cabdullaahi Diiri Isla Cabdikariin Buslo laga qabtay waxaan rajeynayaa inaad u soo jawaabtaan fiidiyahan aan hadda hor fadhiyo oo laygu wareysanayo يعني inta aan anigu waxaan qiyaasayaa inaan 130 meelahaas jiro laakiin inay ka sii badatana waa laga yaabaa laakiin taariikhdaas waxaan ka sugahayaa inay ka soo jawaabaan dadka Itoobiya jooga oo ka haray firkii يعني reerkaas reer Naaib ama bahgareen hooyo Faadumo Sheekh Cali waxaad noo cadeysay in da'daadu waagi Ololdiin la aad adigu dhalinyaro ahayd isla markaasna ay da'daadu kor u dhaafaysa ilaa 130 sano haddaba aragti ahaan marka lagu aadan kula kaftamo waxaad u egtaa qof yar oo da'deed ilaa 60 ilaa 70 ah maxaad isleedahay way ugu wacan tahay wallahi alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga horta qof waxaan ahay nafteeda xanaanaysa markaan runta ku sheego waxyaalaha aan cunumo u maleynay dadka wadankan jooga inay cunaan aniga shaah ma cabo oo qaxwo ma cabno oo bariis iyo baasto inta kariyo dab ma saaro waa kariya meel baan iska dhigaa wax mushakil la yiraahdaan cuna qaado baasto iyo qaado bariid iyo jabceeshe iyo xoogaa qudaar iyo waxbaan isku dardaraa intaasaan cunaa marka labaad waxaan cunahayaa inaan qaado sactara iyo qaado sisin iyo riyaal jumle iyo riyaal saytuun aan isku daro yaanya aan jarjarto yaanyadaasan xoogaa milix ama liima aan ku daro ka bacdi aan ceesh iskaga cuno waaga haduu bariyo ilaahay nabad igu gaarsiiyo waxaan cabaabiyo kulul haduu malab iyo yaalo malabkaasaan ku qastay hadii aan malab waayo badana waa ku dadaalaa inuu agtayda yaalo waxaan cabaa galaas biyo kulul ilaa duhurkii gaajo ima qabanaysa dan biyahaas kulul cabo wax kasta oo cunahayana waxaan jecelahay inaan wax kulul ku cunaa waxaad arkaysaa baasta saxan baasta la soo dhigaa saxan bariis la soo dhigayaa oo dufan leh oo hilib leh oo iidaan leh oo suugo leh marka afka la geliyo waxa la cabahayaa casiir qabow oo talaajo laga soo bixiyo ama biyo aad iyo aad u qabow anigu cuntadaas meel ay tagaysa waa fahmi laahay aad baan uga soo horjeedaa ilkahayna u roonayn calooshayna u roonayn nafsadaysa u roonayn anigu sidaydaba ma cuno wax qabowna ma cabo mukayfna kuma seexdo marawaxad kuma seexdo meeshaas kululon hadda aan jooga baan seexdaa marka alxamdulillah rab dadka Soomaalidana waxaan ku baraarujin lahaa markay raashin cunahayaan inay wax qabow iska daayaan dad anigu hadda iga yar yar oo waxaan arkay ilkihii ka daateen sababtu waxaan ku qiyaasahayaa marka wax kulul la cuno wax qabowna la cabo inay ay keenayaan mushkilo marka anigu sidaasaan ilaahay intiisu waa meel alxamdulillah rabbil caalamiin sida aad iiga jeedid oo aad ilaahay qof yar baad u egtahay anigu wiilkayga hadeer ila soo hadlay waa 8 jir
aniguna waxaan qiyaasayaa haddiiba qoladaa soo jawaabtay in bal dhihi doono 150 jir weeye marka nicmadaas ilaahay baa wata oo iskale laakiin bini aadanka maxaa nala faray taxadar inaan nafteena ma aragtay ka taxadarno cunadeena ka taxadarno yani waxa oo bini aadanku waxa yani badana waxa qofka lagu qiimeeyaa waxa xalaasha ee marka aad badsatid waxaan qabaa inaad dib la kulmeyn oo risqa xalaasha aad cuntid hooyo Faadumo Sheekh Ali waxaad warbixin yar naga siisaa ama aad nooga sheekaysaa farqiga u dhaxeeya dadkii hore iyo dadka hadda jooga gaar ahaan Soomaalida anigu horta reer Shabeellaan la dhaqmay aniga gasar iyo baajimaal iyo reer Bulow iyo Dagiini iyo reer Geedow baan la dhaqmay ayagaan wax la soo cunay dadkaas waxay ku nool yihiin soor iyo caano iyo hilibka dadkan hadda wadankan hilib caadi ah lagama cuno suuqan baa maka haddaad tagto waxaad arkaysaa yani naftaba kuuma qaadayso inaad u nafla caari u gadamo ugu hilibka suuqaas yaalo laakiin dadkii hore wax habeen baryaba ma cuni jirin waxaa la cuni jiray cunto fareesh ah caafimaadku waa badnaa xoogu waa badnaa dadka hadday caawa dhargaan aroortii shaqaa loo baxayaa beer baa la farahayaa xoolaa la aroorinhayaa beeraha maxay ahayd bal baa lasoo gurahayaa webigaasaan biyo ka dhaaminaynaa ashuumaan qaadanaynaa saqiir iyo kabiir waaga hadduu baryo waa la ordahayaa dadka hadda aan banaadir iyo anigu intaan wadamadaas imid aan ku arkay waxa weeye waxbaa layska cunahayaa waa la seexanahayaa duhurkiiba khaasatan hadda magaaladan Jiddoon joogno wax subaxdii 6 saac wax ka horeeyo hurdo ka kacay ama caruur ha lahaata ama yey lahaanay indhaha masaaraysid dadkuna caafimaadkiisa kuma jiro inuu inta wax cuno seexdo wuxuu ku jiraa waxa dufanka badanna in la iska ilaaliyo waxyaalaha ma aragtay hilibkan badanna la iska ilaaliyo aniga hadda hilibkayga haddaan ku tuso waa soo gadaa waa la ii jarjaraa kalaanka camal baan ka dhigaa saliidna kuma daro subagna kuma daro waan kariyaa markaan bisliya isaga la isku qaleeyaa bac ama baaqulan ku shubtaa talaajada geliya markaan wax cunaay 2-3 xabaan kala soo baxaa waa iska qalalayay wax dufana ma laha laakiin haddii ma aragtay waxyaalaha qaarkood sida dadku isticmaal dad badan baa aan u arkay inkastoo xaafadaha degdegin waxaad arkaysaa cunto fool aqli ee saliidda ugu jirto oo la cunahayo waa la tagaa waa la seexanahay intay tagay cuntadii marka meel lama tagaysa adiga jiraad ka qaadaysa marka bini aadanka waxaan kula talin lahaa sida ummadii hore ay u dhaqmi jirtay haddii loo dhaqmahayo cuduradan iyo jirooyinka la naadinayo ma aanu aragneen sokor ma aanu aqoonin kolestarool ma aanu aqoonin wax jira ab horta dadka kuma dhici jirin qof dhintay waa la arki jiray laakiin jirada hadda taalo Soomaalida ma qabi jirin dad shaqaysto oo beerahoodii iyo badarkoodii iyo adduunyadooda tabcaday ahaayeen laakiin hadda adduunyo hadda xamar waxaa la iiga sheegayaa naaga caruur lahoon dad inta u yimaadaan dharkoodaba aan dhaqan karno dharka loo dhaqo waxaas nolol miya anagu habeenkii ma seexan jirin ilmaha intaan markay seexdaan oo lugaha dhaqdaan oo buugoodii iyo qalinkooda iska saartaan baa waxaan dhihi baan inta dharka dhaqo baan bir dheer oo tanoo kale intaan bood iyo meel iyo ama kur saaro oo birji ka shido oo dhuxul badan ku shido duugo dhuxusha baan dharka hoostiisa dhigi jiray si ay biri subax ilmahaas u labistaan dad saas ugu soo koriyay baan annagana waa ku soo kornay ilmaha iyagana waa ku soo kornay laakiin hadda naag inta ilmo dhashay reer lahoo ninkeedii joogo oo sugaysa inta dhar aruuriso naag islaan meelaha marmarayso in lacag siiso ma gacmaha ila adahay ma curyaanba ma indhala ah waa qisada aan la yaabo aniga hooyo Faadumo Sheekh Ali waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo fikrad waxaa jirta oranaysa dadka sokorta iyo dhiigkarka wadankan aad bay ugu badan yihiin marka qofka haddii uu Soomaaliya tago dadka badanaa waxay aaminsan yihiin in sokorta iyo dhiigkarka ay ka baxayaan haddaba adigu fikradaas ma qabto inkastoo wadankan wuxuu ugu badan yahay oo dad yar iyo dad waaweyn waxaad arkaysaa dad sokor iyo dhiigkar iyo kolestarool qaba waxay ugu badan yihiin qabowna waa ku jiraan qabowna waa cabahayaan wax kulul iyo wax qabowna waa isku darahayaan laakiin dadka Soomaaliya tago oo halkaa ka tago badana dadka horta oo beeraleyda ama magaalooyinka ma aragtay aan mukayfiyad lahayn oo dadka beer tabcada waxaa laga yaabaa dadka banaadir iyo reer beledka dhow joogo inay ka saxab fiican yihiin bay u dhowdahay laakiin dadka halkaan joogo dhibaatada haysato adigu nin rag ah tahay gurina waad leedahay laakiin anigu markaan dadka asxaabtayda ee dhex galay waxa la cunahay saasan u fiiriya intaan labada gacmood laabta ilaa waxaana waa cunaysiin asiir iyo biyo qabowna waa cabaysiin xagee saliid iyo cuntadii tagaysaa